sallam teenda yar baa masaajidka agtiisa uga dhisnayd markii dagaalka laga soo noqday kadib asxaabtii iyo nabigii way tashadeen waxaa la yiri nimankan maalinkii dhaweyna dhabar jabiyeen waxay la safteen qurayshtii ballantiina way ka baxeen waa cadow inala degan aan iska celin dagaal baa maalinkii dambe lagu soo qaaday meel buura dhexdooda iyaguna degan yihiin oo ay dhufeysay iyo guryo ka samaysteen oo wax geli kara male buuray saaran yihiin waa la go'doomiyey bil iyo xoogaa bay meeshii go'doon ku ahaayeen ilaa bil baa la yidhahdaa ilaa bil iyo xoogaa muddo markay go'doonsanaayeen ay meeshii ku jireen oo ay quusteen cuntadii iyo wixii ay haysteen kasii dhammaanayaan bay waxay yidhaahdeen marka waa isukiin dhiibaynaa waa soo degaynaa bay dheheen yaad ku degaysaan baa la yidhi waxay dheheen nin yidhahdaa sacad binu mucaad oo ahaa qabiil la yidhaahda reer aws iyo khasraj oo deganaa magaalada madiino bay isbahaysi la ahaayeen markii hore iskaalmaysan jireen isku garab ahaayeenoo oo maaragtay khasrajka ayay uga hiilin jireen marka qoladii aan markii hore bahwadaagtii isbahaysiga ahayn odagooda ayaan amarkiisa kusoo degaynaa asagaana xukumayay dhehen odagii oo xanuunsan oo dhaawacmay oo dagaalka laftigiisa ku dhaawacmay ayaa loo yeeray oo halbowle intuu go-ay dhiiggu iska tifiq leeyahay oo la tolay oo bastiisa waa la keenay odagii markii ay kusoo degeen ugaaskoodii beeshaas wuxuu amray intooda waaweyn oo qaangaartay oo ay kasoo baxday tinta hoose wixii raga tinta hoose maxaa u taqaanaa suun miyaa u taqaanaa annaga gabdhaha ola baxnaa magacaas marka kuwii tinta hoose kasoo baxday oo raga gabdha magacaas hataa ma sheegi karto anaga caadi ma noo yahay oo gabdhaha u bixsana anagu ya marka anagu gabdhaha u baxsana magac kale anagu kayaga waa ka xishoonayna inaan idhaahno laakiin kiina dhib naguma hayo maxaa yeele luqadayda maaha anaga gabdhahan u baxsana marka wixii ay kasoo baxday tintaas oo raga wuxuu odagaas yidhi hala dilo wixii maaragtay aynan kasoo bixin oo yar yara iyo dumar iyana wuxuu yidhi hala sii daayo dadka muslimiinta maaragtay ayaa soo kaxaysanaya addoommo iyo maxabuus bay noqonayaan sidii baa la sameeyey meeshii 600 iyo dhowr ayagii oo ku waaweynay meeshii baa lagu dilay nabiguna wuxuu ku yidhi sacad waxaad ku xukuntay xukun ilaahay uu samada kasoo dejiyey 7 sano ka kor xukun ilaahay uu kasoo dejiyo amarkooda sidaas oo ahaa ayaad maaragtay kusoo dejisay buyi waa waxaa moogtahay ciyaalkeena markay maraykanka meelahan imaadaan ama wadamada kale imaadaan hadalada cayada ay ka bartaan wax xishoodaan moogta ma luuqadaysa lahayn oo dhib kuma haysan moogta hadda sheekh maxamed uu yidhi hadalkaas ma oran karo anaga caadi wax hadda adag naguma ahan maxaa yeelay gabdhaha ma naqaana anagu waa cayuhu naqaano wax walba marka ya gabdhaha loo bixiya macalinku waa la yaban yahay marka gabdhaha magacaas la yidhahda loo bixiyaa Ethiopia iyo waqooyiga iyo dhulkaas oo dhan gabdhaha loo bixiyaa marka magacaya laakiin koonfurta looga yaqaan ma garanayna anaftay mar dhow anigu weyn bay igu horeysay oo markii dadka magaca ay u yiraahdeen waan la yaabo waxaan idhi xogaa way u socon waayeen laakiin kadib waxaan arkay in laga badan yahay inaan saas u arkay marka saas weeyaan qofku luqadiisa noqonayada cayda ay iska dhahay kama xishoodo maxaa yeelay mas dareenkeeda ma qabo moogta culayska leeyahay ma dareemayo laakiin kuwa luqadiisa inuu ka xishoodo u badan saas ay ciyaalkeena marka dadka ajnabiga ay ku biiraan iyo cayday marka hore soo bartaan kamana xishoodana way isku caayaan waxa keenay wax luqadoodii maahan marka waxay bawsi bay ku maqleen dib uma arkaan marka fudayd buu yahay saasa keenaysa waxyaalaha sahlay kamid marka qoladii sidaas lagu laayay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa anzala alladhina kuwi alla wuu soo dejiyay buurihii iyo meeshay ku jireen ma ka soo dejiyay dhaharuhum uhiliyay hum oo quraysh iyo gaaladii la socotay oo kale oo carabtii ah oo min ahli kitaabka waa reer bani qurayda min sayasihim dhufeysyadoodiiba alla ka soo saaray waqadafa wuxuuna alla ku tuuray fii qulubihim qalbigooda arrucba argagax fariiqan qayb taqtuluna waa dilaysaan wa fariiqan qaybna ta'siruuna waad maaragtay qafaalanaysaan wa awrathakum alla wuxuu ini dhaxal siiyey ardahum ayaga dhulkoodii wa diyaarahum guryahoodii wa amwaalahum xoolahoodii wa ardan iyo dhul oo lam tada'uuha aynan tegin weli aad tegi doontaan khaybar weeyaan bay culimmadu dheheen wa kaana allahu allana calaa kulli shayin shay dhammaanti qadiiran awooduu ahaa qaala tacaala subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu nabigaana nabi maxamedow qul waxaad ku tiraahdaa liaswaajika xaasaskaaga in kuntunna haddii aad tihiin
turidna alxayaata addunya xayaatadii adduunyada kuwa doonaya waziinatahaa iyo quruxdeeda fatacalayna kaalaya umatickunna waan idin siyaado siinayaa meherkiini ka badan baan idin siinayaa wa usarixkunna waan maaragtay idin sii deynayaa waan idin furayaa saraaxan furitaan jamiilan oo wanaagsan wa in kuntunna haddaad tihiin turidna allaha wa rasuulahu ilaah iyo rasuul kuwa doonaya iyo wadaara alaakhirata daarta dambe adduunyada daarta dambe aakharo fa ina allaha alaa acadda wuxuu u diyaareeyey lilmuxsiniina kuwa wanaagga sameeya oo minkunna idinka mid a adinka ajran ajar cadiiman oo weyn yaa nisaaa nabiy nebi moxamed xaasaskiisow man yaati qofkii la imaaday minkunna adinka bifaaxishatin xumaan mubayinatin oo iska cad yudaacaf laha alcadaabu cadaabka ayaa loo laalaabin aakharo dicfani labalaab wa kaana allahu allana calaa dalika arrinkaas wa kaana dalika arrinkaasna wuxuu ahaaday cala allaahi alla korkiisa yasiiran mid fudud buu ahaa aayadahan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu uga hadlayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam xoogaa imtixaan oo ku dhacay imtixaankaasi wuxuu ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam markay muslimiintu guulaysteen oo ay meelo badan qabsadeen oo islaamkii ballaartay oo xoogaa dhaqaalo iyo ladnaan yaro la gaaray bay nebigu xaasas badan buu qaaday oo 9 xaas buu markaa qabay sababaha nabiga xaaskiisu u bateenna insha allah waxbaan ka taaban doonaa haddii ilaahay idmo aayadda dambe markaan gaarnay insha allah oo Zaynab binti Jahsh iyo Sayd looga hadlayo haddii ilaahay yiraahdo say gaalo u fasiraan maahan nabigu marka sallallahu calayhi wasallam waxay arkeen asxaabtii oo maaragtay waxa weeyaan oo wada xoolo yeeshay waxay kaloo maqleen madaxda dunida ka jirta islaamahooda guryo qasriyaha degan yihiin waa raaxaystaan lacag bay haystaan markaasay waxay yiraahdeen war nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam annaga ma xaqayga nasiyo wax badan ma nasiyo nabiguna xoolo ma lahan jirin mushaarna ma qaadan jirin xoolaha uu iska fogeyn jiray asxaabtu u qaybin jiray oo ka tagi jiray kadib gabdhihii markii dambe way tashadeen oo isku imaadeen kulligood waa isbahaysadeen say u dhamaayeen 9kood shir baa la qaatay waxaa la yiri arrintaas waa in nabiga ku dirqino ama xaqa ay helaan nimanka madaxda gabdhahoodii xoolo badan inaan helna weeye ama maaragtay waxa weeyaan in aan maaragtay u nasiidayo weeye arrintii yaan u farnaabay dheen way tashadeen Caaisha u sheegay arrintii marka waxay dheen Caaisha oo ayada ugu yarayd ma la qofka yar baa la dirsadaa ma ogtahay nabiguna aad buu jeclaa Caaisha ayada noogu fudude intuu tagtay nabiga arrintaa u sheeg Caaisha arrintii bay nabiga u sheegay sallallahu calayhi wasallam arrintii nabiga xoolo ma hayo uu ka tiiraamay arrintii way dhibtay xoogaa yar uu ka gaabsaday iyagii oo dhan oo masaajidkiisa iyo meelihiisa isaga ekaada marka ilaan meesha wuxuu arkay col baa kusoo foolay uu iska fikiray oo weera tiiraanyooday asagoo tiiraanyeysan culamada qaar waxay dhaheen bil bayba kala maqnaayeen oo uusan nabigu iyagii oo dhan u tegin oo uu maaragtay cusla sameeyo iska joogo masaajidkiisa iyo meelihiisa ayagoo sidii marka nabigu u murugaysan yahay ba asxaabtu ogaadeen Abubakar iyo Umar ayaa u imaaday Umar iyo Abubakar iyo gabdhahood baan canaanteeno ilaan gabdhaha inba gabdhaha nabigu ka qabay nabigu iska daay gabdhaha canaaninay uu ku yiri sida saxiib qaran ku soo aroortay markii dambe Umar wuxuu yiri hatta nabiga inaan waan ka farxay waxaan oranayaa buu yiri haddaad ogaan lahayd nabi maxamedow ibnatu Zayd oo maanta inta igu qaylaysi xun aan daco qoorta inaan kala jabiyo waad yaab lahayd buu yiri dadku dhan bay saad islaamu u galaan buu yiri ibnatu Zayd waa xaaskiisa yaa maanta ay dhibtay si xun baa ka xanaaqay inaan qoortay maartay kala jabiyaan dama nabigu uu yaray ilka cadeeyay oo wuxuu yiri dhib ma lahan uu isaga aamusay kadib ayadoo sidii ay gabdhihii ay u wada socdaan arrintii bay aayadan soo degtay aayadan iyo arrintan maxay u dhacaysaa waxay u dhacaysaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu bashar ahaa oo anagoo kala ahaa oo la dhibi jiray sida anagu dhibka u aragno xaasaskiisu inay dhibi jireen in la ogaado in haddii xaaskaagu ku dhibto aad orantan waa ay dhibtay maaragtay bilaaya hala tagtay iyo waa dilaya waa la dagaalaya iyadoo kale maaragtay waa xuntahay aad oran maaragtay waxa way aad isgaabisid oo ogaatid adiga oo maaragtay nabi aan ahayn xaaskaaguna xaas nabi ayna ahayn wixii xaaskaaga dhibkaaga soo gaaray reerkaaga samir badan inaad muujisid ugu yaraan haddaad xal kala wada inaad isxakamayso aan afkaagii adinkaagu gaarin aad isiyaabisid baa la rabaa tababar weeye marka dhibkii nabiga gaaray waxna loogu sheegaya aayadan baa marka soo degtay markaasaa waxaa lagu yiri
nebi maxamed oo xaasaskaaga waxaad u sheegtaa nebi maxamed adduunye ma doonaya, haddaad adinku adduunye doonaysaan iyo quruxdeeda kaalaya waan idin furayaa xoolo fiican meherkeedii mutcada waxa la wax meher ka badan baan idin siinayaa. haddaad ilaahay doonaysaan raalli ahaantiisa iyo nebi maxamed iyo daarta aakharana ilaahay dadka wanaagsan wuxuu u diyaariyey maaragtay oo idinka mid ah ajr cadiima. muxsinna waxaa la yidhahdaa qofku markuu khalqiga ilaahay in uu maaragtay ammaan ka helaan oo xuquuqda ka dhaxaysa asaga iyo khalqiga kale uu ilaaliyo, ilaahay asaga xuquuqda ka dhaxaysana uu ilaaliyo. marka laba xaq qofku ilaaliyo muxsin noqdaa baa leeyahay. adiga ilaahay waxa idin dhexeeya markaad wanaajiso cibaado wanaagsan la imaato, ibni aadamkana waxa idin dhexeeya xiriir wanaagsan alla yarato aad cidna dhibin, markaas muxsin noqonaysa. culimada qaar intaa kasii xeel dheer bay ku fasireenoo waxay dhaheen qofku markuu ilaahay uu maaragtay raali geliyo oo xumaanta iska ilaaliyo, ibni aadamkana xaqa asagu uga leeyahay uga tanaasulo. xataa marka hadday adiga kugu qabsadaan waxaaga aada uga tanaasushid markaasaad muxsin noqonaysaa. gabadhihii nabiga xasaskiisa sallallahu alayhi wasallam sidaas markii lagu yidhi ay aayadan soo degtay, waxaa la yidhi weliba qofka idinka mid oo xumaantan hadda zina lagama wado, laakiin waxaa laga wadaa khalad galo oo nabiga khalad ka gala aakhare cadaabka waa loo laalaabaya. caaisha waxaa la yidhi arrintii nabigu u sheegay marka aayaddii ku akhriyay markay soo degtay, caaisha waxay tihi ya rasuul allah ikhtartu allaha wa rasuulahu wa daar alaakhira bay tiri, rasuulka ilaahay anigu aakharo iyo waxaan doortay tiri rasuulka ilaahay iyo alle aan doortay, adduunyada baa ka tanaasulay tiri. marka nabigu kuwii kale inuu sheego damcay waxay tiri rasuulka ilaahay hal baan kaa codsanayaa caaisha inay tanaasushay ha u sheegin, inay u dhamaysay rabtaa kuwa kale la furo mogda wala isla qabo taqaan mogda, kuwa kale waxay rabtaa inay u dhamayso. marka waxay tiri baa la yidhi saas culimada qaar yiraahdeen, adigu waxay tiri inaa si walba ka wada ayadu dumar markii la isla qabo daraa'ir baa la yiraahdaa, waa iska masayraan oo isma jecla mogtahay. waxay tiri rasuulka ilaahay anigu inaan tanaasulay bay tiri ha u sheegin bay tiri, kuwa kale adiguna ku akhri aayadda u sheeg, hadday tanaasulaanna maaragtay haddee waxa way waa tanaasuleen, haddii kale ha xaarato. nabigu wuxuu yidhi ilaahay igamu dhigin buu yidhi qof adag oo jaafi oo madax adag, ee ilaahay wuxuu iga dhigay mid raxiim oo naxariis badan, waan u sheegayaa bi haddii lahayd. marka nabigu wuu u sheegay, caaishana way tanaasushay buu yidhi, aayaddina waa sidaas dhammaantood marka waa hoggaansameen, waxay dhaheen ilaahay iyo rasuulkiisaan u hoggaansanay iyo daarta aakharo. marka culimada waxay yidhahdeen caaisha sababaha ay u codsatay maxay tahay inay tiraado ha u sheegin, ilaah baa garanaya. laakiin waxay yidhaahdeen mufasiriinta qaar ka mid a waxay rabtay dhaheen kuwa kale khadka inay ka baxaan iyagoo dhanba oo maaragtay waxaa la yidhahdaa daraa'ir badana way isdhibaan dumarku maaragtay markii la isla qabo. aayadda marka waa sidaasa alla subxaanahu watacaala arrintii qadiyadii ku gabagabeeyey, gabdhihina way hoggaansameen. allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu nabigaan qul liaswaajika xaasaskaaga waxaad ku tidhahdaa in kuntunna haddaad tihiin turidna alxayaata adunyaa xayaatada adduunyada kuwa doonaya wasiinatahaa iyo quruxdeeda fatacaalayna kaalaya umatickunna waan idin raaxayn, siyaadaan idin siin meherkiini ka badan, wa usarixkunna waan idin sii dayn saraaxan sii dayn iyo furid jamiilna wanaagsan. furitaanka wanaagsan waxaa la yidhi in la isxagxagta maahan, waa dad gabadhii hadda ay carafba imaado in la kala tago ay imaato, waxaa la rabaa adoon cidna idin maqal, adinkoon iscaayin, adinkoon maxkamad tegin, adinkoon isdacaayadayn, dagaal iyo buuqba adoon furin, walaalay maaragtay haddaan heshii weynay waxaad xaqi u lahaydna waa kan, waxaagii waa kuwan, waxaad haysatana qaado, intaanoo siyaadana waa kuugu daray. dadkii tolkii gabadha ay ka gurstaan raalli ahaada, adinka eed ma lihidin, gabadhii waa isfahmi weynay, dhib baa imaaday, haddii sidaan xal baan bido si macnaha degan tanasul. laakiin hadda xagato tiraahdeed dhegtan anaa kuu gaday ii bixi iyo sariirtan iyo firaashkan anaa soo gaday iyo maaragtay waxa weeyaan inaysa maaragtay igu soo noqonin kitaab ha marta iyo yaradkii aan bixiyay hala ii soo celiyey iyo sama taqaana waxaas qanjiraysiga ah, waxaasoo dhan wax fool xun wey, waxaasoo dhan looma baahan. gabadhan waxaa la rabaa si sharaf leh inaad u siidayso qur-aanka uu sheegayba. marka sidaan hadda waxa way sida wanaagsan gabadhii inaad siyaada siisid, haddana meherkeeda siyaada weliba siisid, aadna sii dayso aadan xagxagan. allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi fatacaalayna ku dhekaalay umatickunna waan idin siyaado siini oo maal siyaadaha idin siinaya oo meherkiini ka badan, wa usarixkunna waan idin sii daynayaa saraaxan sii dayn jamiilna wanaagsan. wain kuntunna haddaad tihiin turidna allaha alla kuwa doonaya raalli ahaantiisa, wa rasuulahu iyo rasuulka alle, wadaara alaakhira iyo daarta aakharana, fa ina allaha alla acadda wuxuu u diyaariyey lilmuxsinaati gabdhaha wanaagsan oo minkunna idinka mid ah adinkaa ajran ajr cadiiman oo weyn. yaa nisaaa nabiy nebiga xaasaskiisow
من يأتي قفك لا إمادة من كنا إذن كمدة بفاحشة فاحشة لا إمادة مبينة أو عد حمان فاحشة تيسنا لك موضة يضاعف لها العذاب عذاب كالولا لابيا ضعفين لبن لاب وكان ذلك أرن كان على الله ألا كرك سوحوا هذا يصيرا متفض إنه عذابك إذن لله الله سبحانه وتعالى ويقبله إلى الله الله ومن متك يقنط الضيعة ومن كنا أدنك إذن كمد لله ألا أضيعه ألوه قنسمه ورسوله يا رسول كيسه وتعمل سميسا صالحا عمل ونكسا نؤتيها وحنصيرين أجرها أجر كذا مرتين لبجر وأعتدنا لها وحن أضيارنا رزقا رزق كريما ومارك ونكسا رزق واسع ونكسا بان أضيارنا يا نساء النبي نبي محمد حاسس كيسو لستن متهدين كأحد قفل متهدين ومن النساء ضمك كالكميدة إن اتقيتن هداد الله كبقيسان فلا تخضعن هاجر عننا بالقول هذا الك وفيطمع الذي كيؤذ ضماعيه في قلبه وكسغنا مرض عذر يجر الشبهات نفاق وقلنا واحد نبتل هذا قولا هذا لو معروفا أو نكسا وقرنا واحد كسغنا أما وقرنا جمهور وقرنا بأغرير واحد كسغنا في بيوتكن قريهن ولا تبرجنا هنا إسغاويننا تبرج الجاهلية الأولى جاهلين تفرسي سقاوين جلين حاسس كوضا وأقمنا الصلاة أوغا وآتنا الزكاة سكذا بحية وأطعنا الله ورسوله عليه رسولنا أضيعا إنما يريد الله ألا وحو دونيا ليذهب عنكم إنو إذن كتكسيو أرجز حمان أهل البيت يا أهل البيت أو يظهركم ألا إذن ظهروا تطهيرا ظهير واذكرنا واحد أخردان ما يطلع واحد لقوا أخرنا في بيوتكم قريهن ومن آيات الله آيات القرآن إيا والحكمة حكمة ولقوا فسر السنة النبي أحاديث إن الله ألا كان وحو هذا لطيفا مدتك أدمريو أنحرسته خبيرا وحال دير ودتك الله سبحانه وتعالى السبب ولي قبله لسي هذا يوحو إلي قبله قفك إذن كمده oo ilaahay adeeca ee rasuulka camal wanaagsan sameeya ajarkiina laban laab oo Allah subhanahu wa ta'ala ka dhigay sidii inqaabkiina laban laabka waa ilaa waxa la dhibaya ama la raali gelinaya waa nabi marka dadka kale uu ka ajar badan yahay laban laab baan ajarka idin siinayna waxaana u diyaarinaynaa risqi wanaagsan waxa la yiri xaaska nabiga lama mitihirin gabdhaha kale ee hadalka ha jilcinina waxaa la yiri markay saan oo kale waa min baabu tacliim balay gabdhaha xaaska nabiga hadalka inay jilcinteen laga ma fahmayo ee waxa la hadlayaa ayaga la hadlayaa laakiin dadkooda inay ka bartaan baa la rabaa maadaama ayagu ay yihiin usradii waxyigu ugu soo dagahay nabiga iyo gurigiisa beedkiisa ay yihiin gabdhaho dhan baa waxa la rabaa hadalka inay jilcin waxaan meesha ku jirin oo kaleeto in maaragtay hadalka la adkeeyo jaafi la isticmaalo marka waxaan arkaysaa Soomaaliya soo kharibanayo gabar baa intaan aayadan iyo loo aqriyo ma si khaldan baa loogu fasiray mise mid kale markii xijaab bay qaadan xogaa ay fahmaysaa marka dadka ma salaamaysa afkay bataagaysaa salaam alaykum dad tiraado si waxa kula hadlaysaa yeer xagashaha kula hadlaysaa qof waxay noqonaysaa iyadoo jaafi oo qalalan nabiguna muxuu yiri al-mu'minu hayyun layl mu'minku waa qof degan oo naxariis marka hadal macruuf hadalku waxa weeye hadii lagu yiraahdo salaam alaykum wa alaykum salaam hadii lagu yiraahdo waxaas ma arag tartiib hadaad maaragtay waxa weeyaan ignore gareyso qofkii salaantii ba qaadin khayr baa raadinaysa mid kale aad ka tagtay khalad kale aad gashay marka waxaan rabaa tawaazun inuu jiro tawaazun adilada sharciga inay miisaan inuu jiro rabaa oo gabadhu aysan hadal adagna isticmaalin oo dagaal iyo xagasho hadal nugulna aysan isticmaalin ee hadalkeedu uu yahay hadal normal oo caadi ah sida caadiga dadku badin aan laga didin hadal aan rabo oo hadii la salaanta ay qaado hadii wax la weydiiyo su'aasha ay si degan uga jawaabto laakiin aysan ahayn qof dagaalamaya ama aysan ahayn qof ayadoo dhan maaragtay waxa weeyaan maaragtay si hadal nugul oo jilicsan soo jiidasho oo ragii rajo gelinayo oo ay gabar maaragtay waxa laga daadsan karo loo arkay inay soo qabal rabo saas la rabo markii loo fahmo oo normal qofku inuu yahay la doonay sida caadiga Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu marka idin dabaaciyo kan qalbiga ka jiran hadal wanaagsan hadalka wanaagsan waxa lagu fasireen waa hadal iska caadi sida caado ay ku dareertay oo hadal aan adkayn aan saad u jilicsanin way sidaas way
الله سبحانه وتعالى وحوليه وحد أخريدان وحو الله سبحانه وتعالى ليه قفك صلاتنا أوجا سكدنا بعيو قفك إلهي رسول أضيعنا إلهي رسولنا أضيع إلهي وحو دونا يا حمان تأنو إذن كتك يا أهل البيت أهل البيت كاس حديث واحد جري البخاري كوي النبي صلى الله عليه وسلم بيع عائشة وحي لها هاي نبي جه أيام ما لا تشوفي بيتري مركاسة النبي صلى الله عليه وسلم وحاو إماضي علي يا فاطمة يا حسن يا حسين علي بارك النبي الماضي بين فاطمة النبي قال لي حسين وحوها النبي أبوها فاطمة رشي علينا أبوها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومركز سوق هذي مرضي وحشوق لي حسن يا فاطمة يا علي الأمانطود مركز وحو كيري إنما يريد الله ليذهب عنكم رجز على البيت ويطهركم تطهيرا وحو يري مركز آيات أنا أخرية وحو البيت إلهي وحو دون إياه إنه إذن ظهره حمان دمانت إذن كب ظهره معنى وحويه الله سبحانه وتعالى البيت وح على وحي حن أو قفك جله إن إسكا إلى لسان بإذن الله دون إياه أذن كنا دون أو مع سيدي حمانتي قلبه وقف إنه حق ليه إنه ما ركتي وما طلبه هذا هو خلق إلهي إن النبت جريسيد خالق ألانا أضيعدان ساسو ألا دونيا مركزنا الله سبحانه وتعالى وإذن ظهره جنة وإذن جليه حمان دمان تيتكوكه فن وكان ذي فأضغطان الله سبحانه وتعالى وحليهم إن آياتا مركز آياتهن وحليه ومن يقنط قفك أضيع ومن كنا إذن كمد لله عليه ورسوله رسولك وتعمل السمايسة قبليه والله ضي صالحا عمل ونكسن نؤتيها وحن سينينا أجرها أجر كذا مرتين لبشر واعتدنا لها وحن أضيارنا رزقا رزق كريما أو نكسن أو شنا يا نساء نبي حاسس كيسو لستن كمد لمد متهدين كأحد مد أن النساء دمرك كميدة إن اتقيتن حداد على كب غيسان فلا تخضعن بالقول هذا الكهجل عنينا وفيطمع الذي هو إذن دماعيه في قلبه مرض قلبه سؤجرنا وقلنا واحد هذا قولا هذا المعروف أو نكسن وغرنا واحد كسقناتا في بيوتكن قريهن ولا تبرجن هإسقاوينين تبرج الجاهلية الأولى جاهل وسيسقاوين جرين وواحد سمين جرين باليه gacmaha iyo luqunta iyo xudunta iyo meelay banhin jireen kuwan hadda gaalada aan la joognaana waaba ka sii daran yahay dharkii rabbi way dhigteen marka gabadha muslimada inay xijaabataan laga rabaa oo aysan sida jaahiligana waxa la yiraahdaa baa la yiri qofkii kasta oo aan diinta islaamka ku dhaqmayn ee wax khilaafsan sameynaya oo diinta Ilaahay ka soo horjeeda yaa hada laga wado iskool ma aadan laga hadlayo waxa laga hadlayaa qofka aan diinta Alla ku dhaqmayo mise kuma dhaqmayo ولا تبرجن هيسقاونين تبرج الجاهلية الأولى سيدي جاهلينتي هوريتو وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة سكذا بحية وأطعنا الله ألا أضيع ورسوله ورسولنا أضيع إنما يريد الله ألا وحدونيا ليذهب عنكم إنو إذن ككحيو الرجز حمان أهل البيت ويظهركم إنو إذن كظهر حمان تطهيرا ظاهرين وذكرنا واحد حسطان ما يتلى في بيوتكن قريهنا وحل وآخرنا يوم من الآيات والحكمة حكمة إن الله ألا كان وحو هذا لطيفا مدتك أودم ريو أطورة خبيرا أطورة قلبي ودو إن المسلمين رجى مسلمين والمسلمات إذا قبلها مسلماتك أو إلهي الدين تسؤه جنسمي نبي وحكوت المامي مسلم الكوت المامي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم وقفك عنتي سي أفكيسة تدفع كبد بعدين والمؤمنين والمؤمنات هي كوا مؤمنين تا أو لجه لي إن إلهنا الرميين عمل كي ونكسنا أي سميين نيت في عن أي لا إمادين كتاب كي يسنو أميشان تنا وشروط بدن ومرة قفك مؤمن لي وحلير مسلم وكحل ليريه والفيري قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بلي بقي باديك وحيدين وان إسلامنا وان ما ركتب إلهي من رمينين آمنا بيدين قل لم تؤمنوا بلي وروي درجة إيمان كان ميدنا قارين ولكن قولوا أسلمنا وحتى هذا حضان إسلامي ولا ما يدخل الإيمان في قلوبكم بلي قلبك إن إيمانك بلي وما قارين بلي هذا توحيد بعد مرة يساير قال مؤمن قال لي مؤمن كوحل إلى قفك إلهي رسولك رميسان كو أو قلبك يسأ
maaragtay ka rumaysan kuna qowla shahaadateynki haddana waajibaadka oo dhan guta acmaashii wixii waajib alla saaray guta haddana niyad iyo ilaahay dartii bay ka tahay haddana sunnadii nabiga waafaqsan tahay intaa markaa isku darsato waa muumin noqonaysa marka muuminka waa darajo sareysa iimaanka markii la tiriyo waxa la yiraahdaa al-iimaanu qawlan wa 'amalan wa i'tiqaad yaziidu bi daa'a wa yanqus bil ma'asi marka waxa ay leeyihiin culimadu la qawla wala al-'amalu illa bi niyya wala niyyatu illa bi muwafaqati sunnah bayde aydan iimaanka qofka waxa laga tilmaamaa inuu kuna qawlo i'tiqaadiyo amal iyo daacana uu sameeyo waliba ay niyad ka yihiin waliba kitaabka iyo sunnada ay waafaqsan yihiin waxa uu sameeyo intaas oo isku daray jumlada ma ka heshid baad muumin noqonaysa marka wax shuruudo badan weeye muumin baa xal dheer wal qaanitina raga ilaahi adeeca iyo wal qaanitaati gabdhaha la adeeca was saadiqiina kuwa ka run sheega diintooda iyo was saadiqaati gabdhaha ka run sheega was saabiriina kuwa sabra oo raga iyo was saabiraati gabdhaha sabra wal khaashiciina kuwa khushuuca oo markay cibaadeysanayeen qalbigoodu isbedelo iyo wal khaashicaati gabdhaha maaragtay khushuuca wal mutasaddiqiina kuwa maaragtay wax sadaqaysto oo ragga sekada u horeysa sadaqada way soo galaysaa iyo wal mutasaddiqaati gabdhaha wax sadaqaysta was saa'imiina kuwa sooma was saa'imaati iyo gabdhaha sooma wal xaafidiina ragga xifdiya furuujahum xubinkooda taranka iyo wal xaafidaati gabdhaha ilaaliya ayaguna xubinkooda taranka wadhaakiriina allaha kafiiran kuwa ragga ilaahay in badan xusa iyo wadhaakiraati gabdhaha ilaahay in badan xusa acadda lahu alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga maqfiratan dambi dhaaf iyo wa ajran ajr cadiiman oo weyn 10 sifa la sheegay meeshan 10 ka sifo haddii hal oo tiri 20 bayba noqonayaan midna marka la isku qabto 10 ka sifo dad kale oo wanaagsan janno iyo waxay leeyihiin maqfiriyada dambi dhaaf ayadan markay soo dageysay nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadha midba mar u timid balay gabadheeda ummu amara al-ansari yaa waxay tiri ya rasuulallahi ma ara kull shay ila lirijali wama ara an-nisaa yadhkurna bi shay'in baytir waxay tiri ma arka baytir arinta uma arko illa wax walba rag ba yeeshay ya ayuha alladina aamanu markii la rag baa ka muuqda meesha aamanu ya ayuha almuslimuuna rag baa macnaha arigu waa kanay loo inkastoo mar walba laga wado muslim oo wixii iimaan leh haddana rag baa inta badan lala hadlaa quraanku la hadlaa bay tiri gabdhihii ma ayay tiri gabar kale nabi xasan kamid ah ummu salama la yiraahdo ayaa waxay tiri ayaduna nabiga ayaan u yidbay tiri sallallahu alayhi wasallam markaasaan waxaan ku iri bay tiri ma lana la nadkuru fil qur'ani kama yadkuru rijal sida quraanka ragga loogu sheegay anaga loogu sheegay maxaa dhacay kadib aayadan soo degto Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ragga muslimiinta gabdhaha muslimiinta gabdhaha muuminiinta gabdhaha ragga muuminiinta gabdhaha ilaahay adeeca ragga adeeca kulli meesha lagu sheegay markaas sababku aayadu ku imaaday saas ku imaatay baa la yiraahdaa laakiin sifaadkaas 10ka qofka laga helo waxa meesha laga faa'iideysanayaa inuu leeyahay maqfiro dambi dhaaf iyo ajr aad u weyn dhikriga alla ugu dambeysiyay wadhaakirina allaha kathiran wadhaakirina oo dhikriga maxaa ugu dambeysiyay ahmiyad aad u badan oo gaar ah dhikrigu leeyahay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam nin baa u imaaday marka adkaartan badan oo la akhriyay iyo wixii baa ku batay oo arintii ugu wareeray markaas ya rasuulallah inna shara'a al-islam qad kathurat alayya shariicadii islaamku way igu badatay buu yiri haddaad ducada akhda waxaad helaysaa tan haddaad akhda waxaad helaysaa bala leeyahay maxaan sameeyaa buu yiri nabigu wuxuu yiri laa yazaalu lisaanuka radban min dhikrillah war arabkaagu xuska alayuna ka zuuli buu yiri subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah astaghfirullah aduu waxun sheeg waxun arabkaagu yuna ka zuuli buu yiri saasa kugu filani arabkaagu maaragtay yuna wax xuska allah yuna ka maraanin buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam intii suuragal wadaada wurdina marka afka wax buugu jirin intii suuragal waa in arabkaagu uusan xuska alle una ka zuulaynin nabigu sallallahu alayhi wasallam ahadiis aad u tira badan ayuu wuxuu ku tilmaamayaa dhikriga alla la xusaa iyo fadliga uu leeyahay waxa kamid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay la hawla wala quwwata illa billah wa kanzun min kunuzil janna la hawla wala quwwata illa billah kaliya akhriid baa waxay kamid tahay kaydadka jannada la dhigta waa kayd kuwa jannada la dhigta bal fiir wax ayaara ma marka subhanallahi wa bihamdihi kaliya waxa la yiri qofka haduu akhriyo oo la subhanallahi wa bihamdihi waa wax fudud
xadiis badan baa kusoo aroortay oo kala duwan laakiin nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamayaa qofkaas subxaanahu wa bixamdihi laazima oo badiya in ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigiisa uu dhaafo dunuubtooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku xoreeyo laakiin waxaa ka horeeya waajibaadkii salaadii iyo soonkii iyo wixii kalena qofku waa inuunan maaragtay ka suulin oo nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam oo ka ansaxay subxaanallahi wa bixamdihi qofkii dhaha ayadoo tiro koobanna way soo aroortay 100 mar 100 jeer haddaad maalintii tiraa subxaanallahi wa bixamdihi waa inta keliya nabigu wuxuu yidhi qufira lahu maa taqadama min dembi dembigii hore oo dhan oo u galay baa loo dhaafayaa buyi bal fiiri dembigii hore oo maaragtay uu galay oo dhan baa loo dhaafayaa waxaa kaloo sugan xadiis saxiix nabigu uu leeyahay alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum war ma idiin sheegaabiya camaashiina tan u khayr badan waasgaaha cinda malikikum ilaahay agtiisana ugu wanaagsan ugu dahiran oo waaragtay wa arfacaha fii darajaatikum darajadiinana kor u qaadaysa wa khayrin lakum min ictaa'i dahabi walfidati inaad dahab iyo waraq iyo fido bixisaan idinka khayr badan inaad lacag bixisaan idinka khayr badan wa khayrin lakum min an talqaw caduwakum inaad gaala la dagaalantaan oo fayadribu acnaaqakum fatadribu acnaaqahum wayadribu acnaaqakum oo aad idinkuna madaxa ka garaacdaan ayaguna ay idin garaacaan ood islaysaan kasii khayr badan asxaabtu qaaluu wamaa huwa ya rasuul allah bay dhaheen nabigu wuxuu yidhi dikrullaahi caza wajal waa xuska alle subxaanahu wa tacala ilahay la xuso marka subxaanallahi wa bixamdihidaas keliya haddaad maalintii 100 jeer tidhaahdo salaadaada iyo soonkaaga iyo waajibkaaga inaad goto xumaanta kale iska ilaaliso nabigu wuxuu sheegay dembigaaga hore u dhaco dhan baa lagu dhaafaya bal intaan ku dhegno subxaanallahi wa bixamdihi maalintii waa wax yare 100 jeer keliya subxaanallahi wa bixamdihi subxaanallahi wa bixamdihi maalin walba 100 jeer haddaa kasii badisana alxamdulillah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aayaadkan hore intaan uga gudbaynaa nebiga oo la hadlayahay oo allah subxaanahu wa tacaala uu la sii hadlayaa oo aan ku jirnaa maaragtay arrintiisii wamaa kaana limu'minin nin muumina umayna sugnaano umaba habboona walaa muuminatin gabar muuminada idaa qada allahu alla hadduu wax xukumo wa rasuuluhu rasuulkiisa uu wax xukumo wamaa kaana limu'minin nin muumina umana banaana walaa muuminatin gabar muumina idaa qada allahu wa rasuuluhu rasuulkii alla hadday xukumaan amran arrin an yakuuna lahum inay u sugnaato alkhiyaratu ikhtiyaar ay ka qaataan min amrihim ayagu amarkooda iyo go-aankooda waman yacsi illaaha wa rasuulah qofkii aliya rasuul caasiya faqad dalla wuu baadiyoobay dalaalan baadi iyo dhumitaan mubiinan oo cad aayadan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlayaa sharciga ilaahay in lagu dul sugnaado aan la khilaafin wuxuu alla leeyahay wamaa kaana waxaa la yidhi kaana iyo maa markay israacaan way ka xeel dheer tahay oo waxay ku dhacdaa baa la yidhi linafyi lsha'ni walxaal labadaba waxay diidaa baa la yidhi qofku xaaladda inuu ku dhaco iyo sidaa inuu sameeyo labadaba iyo qofay ka suurowda inuu noqdo labadaba in saddexdaba linafyi xaali wa sha'ni bay culamadu dheheen marka waa wax aada u xeel dheer waxay la mid tahay qur-aanka wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khada'an